waxaana sib daraa oo mid laga xumaada ciidankii Muxidiino aan intaas oo dhan aan soo maaragtay guubaadinayay deegaanka aan maanta meel uga bixi karin si xor ah in aniga la adeegsado maanta hadii aan deegaanka maaragtay sumcad iyo magac iyo maamuus intaba aan ku leeyahay oo in uu la ixtiraamayo in la igu ixtiraamo qoyskanaga la dulmiyayo carruurtanada yar ee la laynayo in la igu ixtiraamo oo arrintanada dib loo eego la xiriiray hoggaanka nabadgelyada ee maamulka magaalada Dhagaxbuur mudane Maxamed Daarusalaam waxaan wax ka weydiiyay arrinku sidoo yahay balse wuxuu ii sheegay inuunan xog isiin karin waraysiga oo aan idinkeedii la wadaago Laaruush Idil Bashiir fanaanadii qaranka fanaanadii ciidanka deegaanka Soomaalida iyo meel kastoo Soomaali joogto looga bartay heesaha codka macaan ee loogu luqeeyo lagu dhiirigeliyo ayaa maanta tabanaysa in la dulmiyo waan dhawahay Muxidiino aad baad mahadsan tahay saadii soo booqatay adeeg u timid ka dhigideen maxay tahay falka nalagula kacay Muxidiino xaafadan inta ku soo leekaaday social media haysataan xabadaha lagu furay waxaan ku wiil dhaawacayahay wiil dhakhtarka yaalay buugdada ka fadhiisatay xabadii maxay tahay laba gabdhood gacanta laga jibiyo walaalanahay hooyo ay kooma ku jirtay la xilliga taleefankeeda ayna naga qabanaynin marka walaalo dhibkaasi waa dhibka aad aragtaba mise jeer buu dhacay falkan walaalo in badan buu dhacay wuxuu dhacay maalin ka soo wareegtay 18 cisho ka hor buu dhacay waan tagay maxay tahay alaabtii intii laga soo guray xaafadda oo xilligii hadda la soo weeraray xilligeedii kala la soo weeraray oo maxay tahay gabadhii guriga joogtay gacanta laga jabiyay carruurtii la wada laayay alaabtii laga soo guray alaabtii banaanka loogu daadiyay yaan anigu tagay arrintii waan xalinay oo alaabtii dib loogu celiyay waqaastay aan hayno doonno sharci haduu meesha ka jira maxkamadda ay dib ugu noqonayno doonno baan isku ogay يمكن سيدي سلاك يعيال في الوصا ويرغي وقدر يسكتوا الفدية ده خصاص الأساسية بنبوين لو صوتورة هذه أين هو أبييلي وي ده ماشى ولا سلاسة ندون كشرع باكتير لأنني كم حقوق بدنا نكاهات أنا قدر لي قارنان أنا قلت أصلا ولك في محيط الدولة ديجانك محيط ولا طلبة كلام من ما دافع في حدوده أنا محيط ولا يد بيجي يوشيجي يشرفتيدي يمقام كيجي أنا أهري دولة ده وحن كل ورجع يا الله يعني محيط ولا عيدا كأن جرب استاجي إن دولة ده تاجرة أمور شنية وأن أنت صرنا أن وقع عمسنا وحبايبي لي دولة ده ويعرف تعرف كلو وجوه استيجي كجواب إن عندك كجوابي ده وحن قعد صنينا ولا متحوينها يلامها أمر عيد قصي سبب كيس كان إني خاص وقت هذا وقع مستيسر هذا وقع مسلم حياة دور شكور بارنت الدعاء صوت هذا وقع مسلم إلا هذا معي محيدين ولا وحنا وقع مسلم أنا سنقيسون هاي هرت دولة دانو محيط ولا يعني كود تجنا أبهي وقرني أنا قصدي وكله محيط ولا يتقف عيدا كي كتر سنبان هاي هو يصير وكله وعيدا ده أنا جي إن أنا ما ركتي مشكلة سمعنا أو هذا الله وحنا هذا قرح بنات إن أنا أمسني دولة دنا أي هذا شيء واقر لكن ولا حد واي ساسن كو آمسني marka walaal madaxweyne waxaan ku codsanayna in madax meel ka sareeyo la taabto ma jirto waxaan madaxweynaha ka codsanayna inuu arinkanaga uu si fiican u eego weligeed baa la isku qabsan jiray wax ugu bama laakiin waxa ugu ba maatay yar oo biri magayda in walaal la laayo oo hub loo adeegsado oo bambooyin loo adeegsado oo la xabadeeyo wayna laba ka wada hadlay taas walaal u dhib maamulkii baa jooga maxkamaddii baa joogta cid kastoo laamaha amniga ah jooga in hawsha laga hadlo ayay ahayd cid ka hadashay ma jirto wuxuu dhacay xidhiidh ma la sameysay laamaha ammaanka maadaama adiga ka mid tahay xidhiidh ma la sameysay si arrinta lagu kurgalo oo wax looga qabto walaal waxa maana saxanin habeenkii ciidan kolkan ka dulqaadnaba ciidan kala la keenay ciidan markaan ka dulqaadnaba ciidan kala labadii dambe habeenimo nagu galisaan u soo jeedin dambeyntii madaxweynihii deegaanka Soomaalidu maqay dalka dibadiisa ku maqay madaxweyne ku xigeenkii baa jooga janankii deegaanka jooga mudana Gafaadha waxa jooga mas'uuliin kale codsigaagu muxuu yahay codsigaygu wuxuu yahay walaalo
jarnaalku uu ogyahay arrinkan oo markii hore anagu aan tagay intaan alaabta dib xaafadda ugu cun ugu ogaa jarnaalka maxay toolay kafeeda cali siyaad si fiican buu noola dhaqmay maxay toolay wuxuu yiri dee bal harta ciidanka laga dulqaado xaafadda waana laga dulqaaday maamada xidhanna waa la soo daayay amarkiisa yahay waliba tan isagoo naloogu caga jugnaynaya kafeedana uu imanaya yaanu ku niri dee anagu sharciga kama weyn ruuxna sharciga kama weyn wixii loogu taliyaan yeelina uu ogyahay maxay toolay jarnaalku uu ogyahay waxa ogoo kale de maamulka cid ka indhasta wax de maanta la qarin karo maba ahaba oo de social media wixii dhacay wax kasta de wala wada ogyahay waxaan walaal codsanaynaa annagu manihin dad shacaba dad dawladii ka tirsan dad maxay toolay waxay doonaan ba ha ahaadee de inta dawladii u dhigtay siiba anigu de gabadh waxaan gabadh qaran baan gabadh ma ihi شخص عادي هو maxay tiri gabar qabi ma ihi waanu simana magaca Soomaaliyeed baanu simana marka aniga inta leeyahay taqaadan waayay in ma aragtay de xaafadana ciidanka niga walaal hub la beegsado oo xabada la dhaco de taariikhna ma ogolaanay waa dulmi cad marka laamaha amaanka iyo cid arrinkan qosayso oo madaxweynuhu ka u yahay jarnaalka maxay toolay arrimaha booliska laamaha amaanka كل إن حبل أرنتن واصلوا وظلمنا لقد يعني أتصنعنا. هذا ما تنت. وحلا حريري وكان كان نبتقليدا إمام الكامجالة دجحبور مدن محمد دار السلام. وحكوا يديه أرن قصدي هاي بلسه وهو إيش شيء إنه نحق السين كرين ورئيسية أو أن يدين كيد الله وداعه وهو سيء شيء يعني سيجوني يقول شيء إن جرته محكمة دعوة أي كفرين إسلام مركانا دعوة داس أي تاي إن لو وايستو guriga iyo dhulka idil ayruush hadaba idil baan la kulmay oo wax ka weydiiyay arrinka iyo sida uu xaalku yahay waxayna tiri idil anu waxaan ahay fanaanad qaran hadaladeed waxa kamid waxaan nasiib daraa oo mid laga xumaada ciidankii Muxyidiin oo aan intaas oo dhan aan soo maaragtay guubaabinayay deegaanka aan maanta meel uga bixi karin si xor ah in aniga la adeegsado maanta ayaa nasiib daraa waxaan ka codsanayaa madaxweynaha waxaan ka codsanayaa inuu arrinka qoyskanaga uu si naxariis ku jirto oo in hadii aan deegaanka maaragtay sumcad iyo magac iyo maamuus intaba aan ku leeyahay oo in la ixtiraamayo in la igu ixtiraamo qoyskanaga la dulmiyayo carruurtanada yar ee la laynayo in la igu ixtiraamo oo arrintanada dib loo eego intaasaan codsanayaa oo annagii iyo ciidankii aan iska kaan horgeyn oo ciidanka anigu meesha markaan imaado de maxay tole waxa ka dhacaya dhib annagii ciidankii in la isku kaana jabin ayaan inta codsanaya walaalo oo maxay tolay arrinka madaxweynuhu uu gaarsiiyo oo hadda waxaan codsanayaa oo maaragtay oon ahayn maxay tolay cid kale aan jirin madaxweynaha toos uu maaragtay warkani uu toos ugu socdo hadalkani madaxweynaha oo ataagaya madaxweynuhu inuu jawaab degdeg ah uu ka keeno inaan ciidan loo adeegsanin oo ciidanka deefirsan ciidanka waa la adeegsadaa laakiin qaab baa loo adeegsadaa ciidanku waa ciidankii dadka u imanayay in de qofka waa la xidhaa qofka wax kala la dhahaa laakiin in la rasaaseeyo ciyaal yaro maxay tolay meel cunto ka korsanaya de waa mid subxaanallah wax dhici karana ma aha marka taasaan madaxweynaha ka codsanaya inuu madaxweynuhu arrinkanaga hoos u eego aad ba mahadsantahay adaan bannaade sidoo kale waxaad xasuutaan heestii caanka ahayd ee aadka u macaaneyd ee ahayd ciidankaygow waad cibaadaysateen hadda ciidanka deegaanka keliya looma shido ciidamadoo dhan baa loo shidaa ka Soomaaliyeed dhan ee luqadan aan ku hadlayno dhan ee fahmaya ayaa loo shidaa heestaasoo lagu dhiirigeliyaa ugan kartad runtiyo cashowga dhigteen hubkakii saaculu soo cabkortaad dhaade an cabsoonay bay ku yidhahdeen coddheer casho cardhaqaq baad dhahde ariga ciida kan canshur baad dhahde ciidankaygo wale ciidankaygo wale waad cibaadaysatee xogaha ka soo kordha halkan ayaa idinkula wadaagi doonaa hadduu Allah awoodda la yidhaahdo waad mahadsantihiin waa bishaare kale iyo maalin kale iyo weliba shirkaddii weyneyd ee magaca iyo miisaanka ku lahayd Nairobi iyo guud ahaan dalka Kenya Imara Luxury Home oo idin leh dabaqii kalena waa gebagebo oo waa diyaare hore u soo gaadha haddaba bulshada Soomaaliyeed ee ku sugan guud ahaan caalamka gaar ahaan Nairobi haddii ay rabaan
guri tayadiisu aad u sarrayso oo aad u qurux badan meel qurux badanna ku yaal jawina aad ku qaadan karto booqo oo tag xafiiskeenna Imara Luxury Home oo ku yaala caasimadda Nairobi kala xidhiidh lambarada shaashada kaaga muuqda oo wac halow dheh WhatsApp-ka ama koolka haddii waddanka gudihiisa aad joogto oo waxaad tiraahdaa Sheekh Nuurow xaggee baad joogtaan maxaase ii haysaan Imara Luxury Home